السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaali Maxamed waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan. Dhammaantiin meel aad joogtaan walaalayaal waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan. Maalintaydii wacnaata Ilaahay idankiisa. Dhammaanteena maalintaydii wacnaato Ilaahay idankiisa biidmillaah. Walaalayaal dhammaantiin waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan, jimco wanaagsan. جمعها الله إنه كقدر جميد وناكسن إن شاء الله بإذن الله ما أنت وأجمع إلهي إنه كقدر جمعه وناكسن بإذن الله ميلا تشوكتان بإلهي دي كنا بدي إلهي دي كسلام يا إلهي إذا كيس أنت إسلام ومثل محمد وأم خالد يوتيوب أم خالد لما أنت ولا ليالو حايد الله إذا كسلام يا آخرية الدون بقى عفي اللي مسامح بينك بدقتين أدنكم سيدو كلنا يسوع عفيدان وحي خلده يقدع أما وحي هري يجا صدعي إلهي يجا عفيه أسجع الرحمن ويديسني أسجع إيه أوده إتكل إيه ما أوده إله سهي عفيه أسجع الرحمن والرحيم ولا ليال يوتيوب قف مركز صاقلا وحوي بعتدا وحوي حناقي غير صوماليا iyo wadankeeni iyo dibta ka jirta ayaa habba kugu soo rugmanaysa adoo hadalkii haya markaasaad waxaad ka baxaysaa sayskii aad u socotay oo dhanba baad ka baxaysaa sababtay tahay waa dibta ka jirta wadankeeni dibtaasaana saamaysayoo haddaanu rabnay xataa inaanu maxaadaro jeedino oo maxaadaro ka hadalno waxay nala jiidanaysaa wadankeeni iyo dhibaatada ka jirta ilaahay marka saasaan u leeyahay adinkuna isoo cafiye anagoo idin cafiyahayaa إلهي هينا عفية ميلان شوقنا بعدون كان وحلا قاعدة يا مله مدويل البحسدة مدويل شو كل ما يهين بقى وحوي وحلا قاعدة يا مله وأيام القليلة ويا إلهي وحن كبرينا أيامات كاس قليل كاه وأدون كل شوقه إن الله نوفد مينين الدنيا آخرة بقى وحوي هدي الدنيا خير لا هاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بان لهن فقيرنا ما كدورنا يا أنا فقيرة بان كتجيه ما ودهين وحال دهلا الدنيا أدونك بتصال دهلا وحول بتصبال دهلا لكن إلهي بيقان سبحانه وتعالى هدي الدنيا خير لا ده يبيروا على إيد دينها وارنتيس مركب ولا على يلوحة الدنيا دان وابس كل ببري ويه لبدا بري وإتاينا إلهي عبادتي سينا كل ما يسنا الربا مال الربا إنه الدنيا يدبعت ده كل ما يسنا ونفكر Soomaaliya anagana nafta nooga dhacdo saan ugu hayno wadanka dadka la laayay dadka la baabi ilaahay baa soo qoray waqtigaas oo dhan in dadkeena saa ay ku dhacdo in caruurteena la qaato in maaragta dhibaatadaas inaga iyo waalidkeena kala dhacdo aynu isweyno waxaas oo dhan waa wixii Allah inoo qoray subxaanahu wa ta'ala kulli shayna ilaaha subxaanahu wa ta'ala ayaa xalkeeda keenaya oo wax walba xal bay leedahay adduunkan hadii la yiraahdo wax xal mala adduunka saasa wax walba ku dhamaanayaan waxa weeye mar hore dadkan waxaad arki lahaydeen qof walba asagoo yiraahdo intuu meel fadhiisto adduunkan waa saas ku dhamaanay iyadoo la isoo haysto marka ilaahay noo dambi dhaafo walaalayaal meelan joognaba Allah ina xafido hayna cafiyo waxaan saaka rabaa inaan ka hadlo hadii ilaahay yiraahdo waad aragteen hadda xabsigii Soomaaliya ugu dambeeyay oo muxuu hayto meelaha xabsida ah waxa weeye gaar baa loo ilaaliyaa si qaas ah loo ilaaliyaa si qaas ah loo ilaaliyaa waad aragteen adduun weynaha dadka Soomaaliyeedna waxa weeye waa dhagmaal weeye waxay barteen ma ahan iyo waxay ay muxuu hayto xoog ay ku qabsadeen laakiin dhagtooday maalaan waxbay dhageystaan waxbay akhristaan waxbay marka waxa weeye waa taqaanaan dad wada mujrimiina oo qaar dad laayay oo qaar bahalku u xiran yahay inaan isku meel lagu xirinin ninbanin intay ka mashaakil badan yahay in gaar loo xiro meel khaas ah lagu xiraa silsilad lagu xiraa shabag la galiyaa kaligiis uu khaas ku yahay Soomaalidu soo isku sii dhaxdayso waxay tiri yalla afkaartiina iska warsaday tiri nimanka Soomaaliyeed oo wax ilaalinayana waa kuwa aan mar walba ka hadalno oo dhalinyaradeena Ilaahay subxaanahu wa ta'ala soo hadeeyay waxa way bahalkaas caleenta iyo balaayada muqaadaraadkaas ayaaba waxay ka siibtay ruuxiiba ka siibtay
waxaa laga yaabaa mid qorigiisi meel la seex meel iskula tiiriyay in laga dafay ama lagaga xoog roonaaday nin askariya oo ilaahay subxaana wa tacaala subaxdii yaa fatax yaa risaaq yiri tawakkaltu cala allah yiri oo waxa weeye soo shaqo tagay oo og yahay inuu cadow iridka ka fadhiyo wuu og yahay wuxuu iridka ka fadhiya waa cadowgii laayay waa cadowgii wax baabiyey waa cadowgii isaga duulaanka ku ahaa inuu intuu isdhigto qorigii barkada ama qorigii isku tiiriyo meel fariisto waxay ila tahay wax laga roon yahay inay ahayd dadkan Soomaalidana waxa weeye maamulka ay wax maamulayaan in loo sheego dawlado kale u sheegaan oo yiraahdaan sidaan dheh haddaan la dhihinin waxba ma kororsadaan waxaana ugu daran qof dawladan oo rabto qof dad dawlad kale hadalkeeda inay ku socoto ama saaxiiba kula ahaadeen ama ha kaa dheeraadeen anigu hooyo ah haddaan idhaahdo gurigayga qof hadalkiisa ama dad hadalkood baan ku maamulayaa waxa way guriga ma sii jiray sababtoo dad baan dhageystaa ma saasa aniga saasa iga qaldan hadaa iraado waxa way reerkii ma hagaagayo dawladda aad maqlaysaan reerka laga soo matalay qofku waa inuu dawladdu waa inay maskaxdeeda iyadu dadnimadeeda waa inay ku shaqeysaa waa inay dadnimadeeda dawladdu ku shaqeysaa oo ay tiraahdaa wadankan nagaas kale waa dhulkeeni waa hooyadeen seebaan u maamulaynaa waa inaan daacad u maamulnaa waa inaan daacad wax ugu qabanaa waa qofkii ku dhalay adiga seebaad u maamuli lahayd waxaad u maamulaysaa hooyada daacad waa inaad u maamushaa waa inaad waxaad u qabanaysaa juhdiga aad u sameynaysaa waa inaad si daacad wax ugu qabataa dhulkan marka hooyo oo aad maqlaysaan waa sida qofku inuu uu maaragtaa uu ku talagalo ma ahan inaan u maamulno awalba 4 sanaano anagu ahayn saaxiib 4 sanaano 4 sano markaan gurguurad ka baranana waa nala tuuraya socod ka baranay inaad saadhihin weeye waa inaa kii wadanka markaas gacanta ku hayaaba inuu juhdigiisa oo dhan geliyaa asagoo u fiirinaya dadkan uu mas'uulka ka noqday aakhir in la weydiinayo asagoo u fiirinaya dhulkan bari inuu ku doodayo dhibtu ku korsameeyay inuu ku doodayo asagoo u fiirinaya waxaan uu mas'uulka ka yahay inaa bari Ilaahay subxaanahu wa ta'aala weydiinayo maxaad ka qabatay maxaad samaysay mas'uul baad ahayd seebaad wax u maamushay seebaad wax u qabatay la leeyahay bukra haddii Ilaahay uu gaarsiiyo oo waqtigay la gaarto nafta xunta ay ku sii jirto ayuu xisaab ka maqan yahay marka waxa way walaalayaal haddii layna dhaho ordo beer inta layna ku sii daayay nin leeyahay beer baa layna ku sii daayay nin leeyahay garab siday taa u guran mays haba meel baad uga boodaysaa kan maqaataa baad leedahay adoo baan ku iri meeshii oo dhan xaqii cirib ku laayay meeshii oo dhan beertii oo dhan xaqii cirib baad ku leeysa oo dabadaa wax laga goosanayo male saad haba bag halkan ka qatalka adu lahayd baad wixii oo dhan waxna xaq ku leeysa wixii kalena qaadad waa sida marka dawladda hadda aad dawladda loo yahay oo Soomaaliya la yiraahdo nimanka qabanaya waa sida waa beertaas adan lahayn oo lagu yiri miraha ka soo guro beertaas siday noqon lahayd ayay markay ka tagayaan ay wadanku noqdaan qofka wax garanaya ama Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sidoo u yiri wax u maamula beerta qurux badan oo odafeedeeda ku xiran tahay oo wanaagsan oo la leeyahay alla ninkii beerta ka shaqayn jiray sharaf badnaaya khayr iyo baraka Allah siiye oo dadkooda u duceynayo oo raali laga yahay oo hadduu ku soo noqdo beertaas ay beer wanaagsan oo maasha Allah tabaarakalla oo loo soo xiisaya ay tahay ayuu ka tagayaa markaas xataa beerihii kale dariska ahaa hadduu ninkaas soo noqdo waa la kaalmeynaya iska daa ninkii beerta lahaa oo uga shaqeynayay xataa baa ku kuwa dariska baa kaalmeynaya laakiin nimanka Soomaaliyeed oo madaxda oo dawladda haysta waa beertaas
aysan lahayn oo lagu sii daayay oo cagta iyo ciribta ay ku dhameeyeen waxa kalena ay qaateen unbay ka dhigeen. marka birina xisaabteedu waa taala, birina taas xisaabteedu way taala, la isaga tagi maayo. wuxuu ka qaatay waa xaaraan bay ku noqonaysaa. dhibaatada u geystay oo ha noqoto qalbiga muxuu hayto, ha noqoto aadamiga meeshaas joogay, ha noqoto muxuu hayto waxay haysteen oo cagtii ciribta ku dhameeyay, ha noqoto qof dadkan dhan oo Soomaaliya la yiraahdo niyadiisa waxaasoo dhan bari waa la weydiinayaa sababtoo waa la aamin. xagee ka aadaysaa insaankii ku aaminay, dadkii ku aaminay oo madaxda kaa dhigtay oo cagtii ciribta inta ku dhamaysa maalinta dambe ka baxday? xagee ka aadaysaa? ilaahay maxaa bari la hortagaysaa? meeshaa tagtid kii meel qabsada oo intuu cagii cirib ku dhameeyay ka taga meel kale ma aado. sidii tukihii muxuu digsiga kor fadhiyay ayuu soo kor fariisanaya sababtoo ilaahay subxaanahu wa tacaala dambigu ka galay baa soo qabanaya. dambigu alla ka galay ayaa soo qabanaya. markaas muxuu noqonayaa meel kale aadamayo. digsigii oo qolo kale u karsamaya ayuu dal fadhiyaya, ka tagi mayo. marka waxa weeye dulmiga adduunka dhulkan hooyo laga galayo taasa u kow ah, taasa u kow ah. wallaahi waxaad qaadatay iyo waxaad cuntay iyo waxaad cagta ku dhamaysay iyo waxaad ciribta ku dhamaysay midna ilaaha weyn baan ku dhaartay inay waxba kuu tarayn, waxba kuu qaban mayaan. haddaad malaayiin qaadatid, haddaad quluubtii shacabkaas aad xukuntay oo dhan qaadatid inay waxba kuu tarayn. haddaad dulmisid oo baabi'isid oo quluubta ka dishid oo muxuu hayto baabi'isid, ilaaha subxaanahu wa tacaala kugu cafiimayo. adduunka u shaqaysta, adduunka haba meel ku dhaca. dadkan masaakiintaana ilaaha subxaanahu wa tacaala ayay kaalmaysanayaan. wixii alla u soo diraa ilaahay idankii waxay sugayaan mid cadaalada. hadduu kuwa hadda haysta yahay iyo hadduu kuwa kaloo alla uu og yahayba ay tahayba, kuwa cadaaladaha ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo diraya. ilaahay cidna dulmi kuma fiirsado, allah dulmi kuma fiirsado. waxaa la yiri meeshii dhammayd oo dadka lagu hayay ayaa waxaa la yiri intii hubka iyaga laga qaatay ayaa xabad xabad loogu dilay, mid baa loogu dilay. nimanka ishala juhdiga ku bixiyeen xoolaha lagu bixiyo la soo qabqabtay oo mujrimiinta oo dadka laayo cagaha iyo lagu haba jarayna oo day rogteen. marka waxa weeye dadkan aynu dowladnimada ka sugaynaa ama dadnimada ka sugaynaa waa dad ilaahay subxaanahu wa tacaala horay u nacay. sababtoo ilaahay subxaanahu wa tacaala lagama dambi galeen nin muqaadiraysta oo caleen cunahaya oo xoolaha dadka dhacaya oo dhibaato adduun oo dhan sameynaya. ilaahay baa iga og jimcahaasi waxa weeye ninaan allaba usoo kala furan weeye. waa nin markiisii hore habaarnaayo habaar ku soo dhacay oo muslim xaqiisii baaba muslim soo galay weeye. marka waxaan ilaahay marka ka baryaynaa haddaan annaga laftigeena dadweynaha Soomaaliyeed nahay, ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu muxuu hayto ducadeena ilaahay aqbalo. ilaaha subxaanahu wa tacaala dad waxa la yiri qofku marka xanuunsan quraan ba 14 boqolka lagu akhriyaa, 14 boqolka lagu akhriyaa. markii 14 boqolka lagu akhriyo qofka ama waa dhintaa ama waa noolaadaa baa la yiri, ama qofka waa dhintaa oo koogu yiraahdaa ama waa noolaadaa caafimaad baa ilaahay siiyaa. marka waxaan leenahay Soomaaliya aynu hal mara aynu faatixada u soo marno wadankeena, aynu faatixada u soo marno isugu soo dardarno. 14 boqolkana wadaadada intay fariistaan ha akhriyeen. qofkii quraanka bartay oo dhan kii aan baranayna kitaabku ka akhrin karaa hadduu carabiga garanayo. waxaan leeyahay wadankeena dulmi badan baa la kala galay, dhibaato badan baa la kala galay. adduunkaana waa ayaama qaliila. waxaan leenahay faatixada ha loo soo maro.
ilaaha subxaana wa tacaala inuu sidaan inuu ilaahayna ka qayiro mid khayr qaba oo caadila. ilaah baa caadilaya. ilaaha subxaana ka baqahaya ilaahay inuu inoo soo diro maalintaas jimcaha. ilaahaas inuu inoo soo diro oo ina ka dulqaado dhibaatada dadkaa noo naxayn nagu hayaan oo ina ka xoolaysanaya oo ayagu u qabaan inay dan wataan laakiin dan ma wataan, cadaab bay siyaadsanayaan. ilaahaas qaadirka ah, raxmaanka ah, raxiimka ah ha noo soo diro. allahaas ha noo soo maamulo. annagu ismaamuli weyneye oo dhibaato iska qaban weyneye. ilaahaas hana soo maamulo isagaa raxmaane. allahaas ayaana soo maamulaya insha allah biidnillaah oo noo soo dirahaya. allahaas ay noo soo diraya mid khayr qaba oo ilaahay subxaana raalli ka yahay insha allah biidnillaah. anna waxaan idin leeyahay walaalayaal, subax wanaagsan baan idin leeyahay, jamco wanaagsan baan idin leeyahay. ilaahay maalinta inoo wanaajiyo adduun iyo aakhiraba. dambigeena iyo dambiwaadkeena allaha dhaafo, allahana ina cafiyo. haddaynu isku dambownayna allah ina kala cafiyo isagaa raxmaane. intii biri aakhira layna xisaabin lahaa oo qof walba la dhihi lahaa maxaad kan ku samaysa cafi aleyhi masaabax baad iga tihiin. anigana ay soo cafiyaan idin leeyahay dhammaantiin walaalayaal. ilaahayna ha inoo naxariiso meelaan joognaba adduun iyo aakhiraba. maalintaas khayrkeedana allah ina soo aadiyo insha allah biidnillaah. waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.